lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo howlaha arlada haddi lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo ololaha runtaa ujeedadiisa ayaa laga rabaa ololaha runtaa ujeedadiisa ayaa laga rabaa hay furan idinkuma arkaysid shaqaha aadin hay furan idinkuma arkaysid qaranka iso hay furan idinkuma arkaysid shaqaha aadin hay furan idinkuma arkaysid qaranka iso ama fanaaniinta aadka dadka Soomaalida ugu dhex jira su'aalahaas ra'iisul wasaaraha isaga ka jawaabi doona arinta kale aadka u muhiimka ah waxaan u mahadcelinaynaa Xasan Sheekh waxa uu ka mid yahay dadka xisbiyada siyaasadeed ka furtay magaalada Muqdisho sida aan ognahay dadka adduunka ku nool marka xisbi uu wadan qabsado amaba uu qabo opposition party jira waa markii ugu horeysay xisbiyo siyaasiya wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho laga furo dabcan waxaan ka codsanayaa Xasan Sheekh inaanu aragti dhiibin laakiin su'aalaha uu isleeyahay dawladda Soomaaliyeed meelaba mugdo ugu jiraan inuu noo soo koobo ayo Xasan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله برسول عبد محاور برايم مينستر كوا وأماد علينا وأنا كوهم بليين يا فرصة مركي ووري سدت كوسية إنه سوف فديستو وأرين لو بهنا محاور سبيسك أنت وحكومتي أنت اللي حكومة فرق جودة إنه سو قابتو والله بهنا مركب برايم مينستر وحنا له كوهم بليين يا مدان يوكي كوري ودبريان سبدة دقن عصوبة باللوضوء يهروسي ولا كلنا نايكو saddex su'aalood oo aad u kooban aan qabaa aniga mid ugu horeysa waxay tahay yani dabcan mushkiladaha dawlad ummad dagaal sakay ka soo baxday ay qabto dhamaan qabnaa howlaheenu ma fududa marka uma noqonayta Mr Prime Minister dawladnimada waxa asal u ah accountability mas'uuliyad in qofka xilka loo dhiibay iyo mas'uuliyadda loo dhiibay mustawa doonta ahaatee wax laga weydiiyo dalkeena amuuraha amniga waxa ka dhacay waxyaabo aad u waaweyn wasiiro dawladda ka tirsan oo muhiim ah ayaa hal goob lagu dilay hal subax xildhibaano ayaa hoteelkii iyo hoygii ay deganaayeen inta loogu tagayaa lagu laayay arday muxuu ahaa dawladdu isku keentay oo waxbarasho ay u qaadaysay ayaa maalintii ugu dambeysay 100 ku dhawaada ayaa la dilay intaasoo dhan annagu maanan arkin dabcan qaar xukuumaddaadu way ka horeeyeen qaarna shilalkaas iyo kuwa kale badan qaarna intii xukuumaddaadu jirtay ay dhacay wali maynaan arkin qof mas'uuliyaddaas qaaday oo mas'uuliyaddii amni ee dadkaas ka saareed intuu ka soo bixi waayay ama xil looga qaaday ama su'aal lagu weydiiyay oo accountable u noqday xilkiisa uu gudan waayay adduunyada qarniga 20-aadna maanta waxaan maraynaa natural disaster inta dhaco nin in la yiraahdo kama diyaar garoobin oo xilki looga qaado 100 qofood oo Soomaaliya dad ku dhow inay inta dhimato ee qofna aan waxba laga weydiinin oo hawshay caadi iska ahaato su'aashaas waxa rabaa xukuumadda maxaa uga tala midda labaad ciidanka amniga aan qabnaahi waa la soo tababaray caalamkan ugu kaalmeeyay dibadda loo qaaday waa la soo baray laakiin caalamku wuxuu soo bari karaa askarinimadii iyo qoraga iyo xabadda iyo maxaan ku raraa qalabka amniga sida loo isticmaalo laakiin maskaxda askarinimada Soomaaliyeed iyo ciddu xilku u hayo caalamku soo ma bari karo marka askarteenu waxay noqotay marka qaarkood inay ku ekaadaan inay yihiin mashiin wax dila laakiin xilkii iyo mas'uuliyadda ay ka maqan tahay oo la gelinin dawladda maxaa uga tala arintaas in askari dibadda loo qaado lagu soo tababaro sarkaal waa la gartay farsamo khaas ah qof la baraya waa la gartay laakiin askari in maxaan ku raadayay dibadda loo qaado lagu soo baro arinta
kale waa qodobka saddexaad waa compensationka taliyaha tali ku-xigeenka ciidanka booliiska warbixintiisa waxaa ka mid ahayd 80 iyo dhowr askari oo booliis oo dhimatay iyo 100 iyo jarjar maxaan ku idhahdaa dhaawac oo tacbaana haddana waxaa laga hadlaya arrinta dhaqaalaha ciidanka ku saabsan dabcan aad iyo aad ayaan kugu raacsanahay ciidankeenna iyo amnigeenna si aan annaga u lahaano xoolo annaga naga yimiday waa inay ku jiraan ay ku noolaadaan laakiin maamaaha jirta ahayday risaq reerka waa ku jira ayaa rag ka soo bixiyay rabtaa dowladda maxaa uga barnaamij ah si loo helo in aan askarteenna amniga sugaysa dhaqaale annagu aan leenahay ay ku bixiso ay u hesho dadka uga hesho ay muxuu ahay ay ku noolayso halka hadda muxuu ahay aniga saddexda su'aalood ayaan qabaa inta kalena mudan ayaad mahadsan tahay xasan sheekh oo ka mid ah dadkii ugu horreeyay ee xisbiya siyaasadeed furta su'aalaha ayaan ra'iisul wasaaraha u gudbinaynaa kadibna hadduu ilaahay idmo sii wada doon waxaan maranayaa hal su'aal bay ahayd oo Maki Xaaji Banaadir weydiiyey iyo Cabdi Dhuuxo isaguna ka bixiyay comment oo yiri waxa loo baahan yahay in la abaabulo fanaaniinta kun weeye wacyigelinta bulshada fanaaniinta ayaa kowka taasna waxa weeye kulay wasaaradda warfaafinta ayaa u xilsaaran inay hawshaas qabato waana ku dadaalaynaa hadda laftigeeda waxaan maranayaa ilaa waqtigii muddadii dhaweyd oo xukuumadihii tayadii tii ka horreysayba in hadda isbeddel ku yimid fanaaniinta in la abaabulo oo wacyigelinta ka qayb qaataan waana sii wadaynaa waana sii horumarinaynaa marka wuxuu ka hadlay baahida fadhida iyo midda timid waxaan u qaadanayaa dadkii masaakiinta ahaa oo xamar ku noolaa oo kuwa abaari soo qaada ee dul timid sidaan ogeyn marka hay-ad baanu abuurnay la yidhaahdo hay-adda maaraynta musiibooyinka oo qaabilsan arrimahaas inay ka soo samayso istaraatiijiyad runtii waxa weeye markii ay abaartu dhacday abaartaasoo aan isleeyahay ilaa xad annaga gacanteeda ku samaysanay laakiin taasi waa yani topic kale weeye adduunkaana qayladhaan u suuminay dowladdu waa ay dadaashay qayladhaantii si waafiya looga soo jawaabay dhaqaalo badan baa yimid gaar ahaan xamar dhaqaalahaasina yimid cuntadaa timidna waxaan sidaan isku ogeyn hay-adda maarinta musiibooyinka waxay u qaybsanayd 4 qaybood in loo qaybiyo weeye tan koowaad waxaa weeye mudnaanta koowaad in la siiyo dadka soo barakacay hadda oo abaartu ay saamaysay oo abaartu keentay muhiimadda koowaad iyagaa iska lahaa wixii ka soo harataa waxay ahayd in laga bilaabo dadka IDPska la yidhaahdo oo ayagu markii horeba hoyla'aanta xamar ku ahaa iyo meelaha kale tan saddexaad waxaa weeye in dadka fakriga waxaa la yidhi fuqarada iyo masaakiintu waa kala duwan yihiin anugu maqaasi u kala duwan yihiin laakiin afariba aad uguma fiicni laakiin waxaan ogeyn marka hay-ad baanu abuurnay la yidhaahdo hay-adda maaraynta musiibooyinka oo qaabilsan arrimahaas inay ka soo samayso istaraatiijiyad runtii waxa weeye markii ay abaartu dhacday abaartaasoo aan isleeyahay ilaa xad annaga gacanteeda ku samaysanay laakiin taasi waa yani topic kale weeye adduunkaana qayladhaan u suuminay dowladdu waa ay dadaashay qayladhaantii si waafiya looga soo jawaabay dhaqaalo badan baa yimid gaar ahaan xamar dhaqaalahaasina yimid cuntadaa timidna waxaan sidaan isku ogeyn hay-adda maarinta musiibooyinka waxay u qaybsanayd 4 qaybood in loo qaybiyo weeye tan koowaad waxaa weeye mudnaanta koowaad in la siiyo dadka soo barakacay hadda oo abaartu ay saamaysay oo abaartu keentay muhiimadda koowaad iyagaa iska lahaa wixii ka soo harataa waxay ahayd in laga bilaabo dadka IDPska la yidhaahdo oo ayagu markii horeba hoyla'aanta xamar ku ahaa iyo meelaha kale tan saddexaad waxaa weeye in dadka fakriga waxaa la yidhi fuqarada iyo masaakiintu waa kala duwan yihiin anugu maqaasi u kala duwan yihiin laakiin afariba aad uguma fiicni laakiin waxaan maranayaa 2 qaybood oo kala duwan weeye marka lagu xujiyo dadka wixii ka soo hara dadka fuqarada iyo masaakiinta waxba haysan sababtoo dad waxaa jira xamar jooga oo laga yaabo inaysan maalin ama lama asxo cunin baa dhici karta inay jiraan
taas marka hay'adda maalinta musiibooyinka ayaa xusaareed saasuna barnaamijku ahaa saas dadkii wax lagu gaarsiiyay ayay ahayd marka taa haddii la suubiyo gaajadii fadhiday ee tii soconaysa labadaba waxa weeye laakiin barnaamijkaasi oo saa u qorshaysay in loo hirgeliyo weeye mushkiladu waxay tahay dad badan baa ka soo soka maray runtii markii raashinka yimid waxaan aragnay xamar oo dhan jawaanka inay cayrsanayso xamar oo dhan waxay ku mashquulshay jawaanka ninka masaakiinta loo keenay marka silsilado badan baa abuurmay oo ishaysta oo dhici karta inay mas-uuliyaddooda ay ku jiraan runtii waxaa lihi fulxantii ma mooga wixii jira in la sheego bannaanka loo soo saara weeye nima la yihahda gate keepers oo musiibaa oo dadka inta ka haysta meel geysta wixii la siin lahaana dhexda u fadhiista oo dhexda ku dhega marka mushkilado badan waa jiraan caqabado badan waa jiraan in laga baxana waa loo baahan yahay farsamadii looga bixi lahaa in la keeno waa laga maarmaan laakiin waxaa weeye tan cunada la keenay baahida fadhiday tii socotay iyo mid kale ordaysa intaa waa ku filan tahay xisbisaad kama hadlin xasan sheekh waa aad baan ugu faraxsanahay inuu maanta ka soo qayb galo saaxiib aan isnaqaan weeye waa nin aqoon-yahan wanaagsan weeye accountability soomaaliya dhibta ay ku jirto maanta 20 sano waxaa looga bixi waaye waxaa weeye waxaa la yidhahdaa impunity inkaas waxaa lagu yidhahdaa dembiile aan la taaban karin dembiile garab og dembiile reer leh dembiile qabiil ku daaban maxaan ka raadinaynaa waxaa dhici karta inay hay-adaheenna dastuuriga ku jiraan kuwa boqolaal qof soo laayay suurtagal wey been baan isu sheegaynaa marka waa kula qabaa accountability inay timaado hadda tii u dambaysay nin xildhibaana aadan buulle ayaa lagu dilay madiina 4 nin baa hadda u xiran kolley waa la heli doonaa kii dilayna waa laga daba tegi doonaa laakiin waxaan ognahay in kii dilayna uu qabiil dabada la galay iyo reer oo laga yaabo xataa mas-uuliyiin dawliga inay ku difaacayaan marka xisaabta dhab inuu yimaado oo la ishufo oo la ishaadiyo waa laga maarmaan waana inay timaadaa laakiin waxaa loo baahan yahay cabduuli keliya ma keeni karee kulligeen baa laydinka rabaa tuugga inta qofka dila tagaya reer buu u tagayaa soo maa xaafad buu tagayaa reer buu leeyahay degn buu tagayaa maamul baa jooga boliis baa jooga hooyooyin baa jooga urur bulshaa jooga nagu caawiya inaan soo qabanno maxaa ka xun in nin mas-uul ah oo xildhibaan ah la dilo ninkii dilayna uu xamarna la joogo waxyaabaha khaldaadka jiray ka mid tahay aniguna maajid bulad maajid maaragtay waan ma wato inta saasa wax baan ku baabiinaya cabduule ma wato cabduule idinku garab idinka rabaa idinku taageero idinka rabaa idinkaa la rabaa inaad ka shaqaysaan xisbiga aan furayna aan ku darsanno siyaasaddiisa ka mid noqoto wixii fikrada haysana noo kula shaqaynayna discussionkan ama doodan aanu samaynayno waxaa ka soo baxaya in qaybaha wacyigelinta ay shaqeeyaan wasaaradda warfaafinta ama qaybaha warfaafinta waxay ka mid yihiin qaybaha ugu muhiimsan xagga ammaanka waxaan ognahay websaytyo badan raadiyaal tvyo iyo dowladda oo iyaduna leh warfaafin dowladda ku meel gaarka barnaamij saxaafadda ay wax kaga qabanay sidaanu xoogaal u nahay qof kasta markuu rabo tv wacdaa radio wacdaa lamaga feerayo waxaanay ma yihiin wixii ku habboonaa ama nabadgelyada maxay u dhibi kartaa lama kontaroolo waxaad moodaa in loo baahan yahay barnaamij qaaxan oo warfaafintu leedahay si wax looga qabto dadka iyaga laftigooda ammaan darrada qayb ka qaadanaya haddii saxaafaddu ay noqoto mid wax dumisa waddanka dhan waa burburaya wasaaradda warfaafinta wasiirkeedaana la jooga waxaan weydiinaya hadduu jiro barnaamij ku saabsan sida wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka amni darrada ee saxaafadda laftigooda ay qayb ka tahay wasiir
بسم الله الرحمن الرحيم والله سنتهي وزارة warfaafinta xukuumadda kumeelgaarka Soomaaliya waajibaadkeeda shaqo iyo waxa loo igmo waxa kamid ah in ay shacabka Soomaaliyeed soo gaarsiiso warbaahin tayeysan warbaahin xaqiiqo ah gacanna ka geysato bulshada sidii loo wacyigelin lahaa wacyigelinta bulshada lagu wacyigeliyo xaqiiqada dhabta ah waa waajib shaqo waxaa jira barnaamijyo iyo qorshe aad u ballaaran oo wasaaradda ay ugu tala gashay hawshaas sida aad ka warhaysaan wasaaraddu waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu hawsha iyo shaqada iyo shaqaalaha badan waa shacabka reer Muqdisho iyo hadda dunida daafeed oo dhan waa laga daawadaa waana laga dhageystaa adeegyada ay wasaaraddu qabato ha ugu horeeyo idaacadda radio Muqdisho oo wada taqaanaan waa idaacadda loogu dhageystiga badan yahay dalka dibaddana aad looga dhageysto lagala socdo aaladda internetka satellite-kana saaran waxa kaloo sidoo kale barnaamijyo nabadeed iyo kuwa wacyigelinba laga soo daayaa TV-ga qaranka waxa kaloo jira jaraa'idkii dalka in ay wasaaraddu soo saarto jaraa'id inta wax akhriso ah waxa jira wasaaraddu in dib loo yagleelayo dib loo dhisay wakaaladii wararka Soomaaliyeed ee Soona oo maanta gobolada dalka iyo dalkoo dhan ka soo tibisa wararka iyadoo luqado kala duwan ku baxa waxa kaloo jira oo dadku ay aad ula socdaan website-ka iyo barta internetka ee wasaaradda marka wasaaradda shaqadeeda sida Prime Minister-ku uu sheegay hawsha ah xukuumaddu ay wado oo ah wacyigelinta iyo dadka Soomaaliyeed in la gaarsiiyo information iyo xog dhab ah shaqadaas goobta laga fuliyo waa wasaaradda waxaana diyaarinay wax alla wixii agab ahaa iyo platform loogu talagalay in lagu gaarsiiyo dadka waxa arintaas aan rabnaa oo aan marar badan ka weydiisanay ummadda Soomaaliyeed shacabka gaar ahaan dhaqanka siyaasiyiinta aqoonyahanka in la isticmaalo adeegyadaas la diyaariyay si ummadda ay u gaarto fariinta waxa laga sharqamiyay in odayaasha dhaqanka aysan doorkooda qaadan markii la fiiriyo qaybo badan oo kamid ah dhinaca nabadgelyada waxa laga hadlay culimada diinka in badan oo kamid ah waa dadaalan qaar Allah siiyo in aysan dadaalkii loo baahnaa ee hadda dhibaatada maanta na hortaala ee dhalinyaradii iyo mustaqbalkii ummadan la gaarsiiyay fikrado islaamka aan shaqo ku lahayn oo nacayb iyo dil iyo baaba iyo dhibaato iyadoo diintii Ilaahay ee naxariista lahayd iyo islaamkii nabadda ahaa lagu been abuuranayo in loo gaarsiiyo in doodaasi aysan qaadan kaalintooda marka annagu waxaan rabnaa haddaan nahay wasaaraduna oo matalaysa xukuumadda kumeelgaarka ay guud ahaan dawladda oo diyaarna u nahay in nabadda laga wada shaqeeyo in fanki iyo nabadda iyo nabadgelyada la booriyo Cabdidhuux wuxuu ka mid yahay waaxda fanki iyo suugaanta waa tiimka loogu talagalay hawsha shaqadeeda kula howlan aadana u soo dhaweynaa shaqooyin badanna waa la qabay waxa kaliya aan codsanayno waxa weey hawshan sida Prime Minister sheegay ma aha hawl koox yar nabaddu ay ka shaqeyn karto wasiirro kooban oo dhowr iyo 10 wasiira ma aha waa hawl anagoo dhan noo wada taala waxa la rabaa in qof walba kaalintiisa iyo doorka uu leeyahay uu ka soo baxo sidaas aan nabad ku gaari karnaa mustaqbalkeena u badbaadin karnaa dhalinyarada yararkeena kala duubsada ee dhibaatada lagu أو